بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمدنا وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم إنك الحميد المجيد. بسم الله إن وإذن سلامي الأول مالكستو أدونك دعالذي سأدك قنوشين أصحابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب لايك شير هاي لدومرين هداكو عصبتهين جنالكيغا وأصوب وقتان وولاشين oo wacyigelin iyo dhiirigeli intaba idin wada waxna waa iga faa'iideysiin waxna igama faa'iideysiin yani markaan 10 su'aalo sheega wax baad ka faa'iideysiin qaarna faa'iido ma lahan bay noqon karaan dabcan because bilaadanka isku aragti ma ahan way kala ra'yi duwan yihiin way kala aragti duwan yihiin laakiin always waxaan jeclaa wanaaga inaan ka hadlo sida wacyigelinta kale inaan ka hadlo ma sha Allah أصحابي وإذن سلام هدا channelkayga ku cusubtihiin subscribe like tamab inta share tahay ila dawmarina ma sha Allah hadii aad awal hore ila joogteen tamab share iyo like ta ha iga iloobina commentiga wixii oo dhiirigelin aad iga soo bixinaysiin dhiirigelin ama wacyigelin ama wax sheeg ama wax qaldan hadaan ku hadlay waa dhankiina iyadana laakiin ma sha Allah tabarakallah walaalayaal intaas aan idin ka codsanaya cusugayga waa inta markaan ka soo gudbo maanta maxay noo wadaa waaye ambarada markay aragtiin ama meesha ay soo fariisato wax ku soo tuurto baraf ba Allah ka dhigay wax leen wadaa barafkaas aad arkaysiin waa maxaa la dhihi jiray wacyigelin wuxuu kaloo ka mid yahay tusaalo yani waxaan dadka tusaay for example African joogay filmaanta la dhigayaan arki jiray filmaan meel baraf lagu dhigay meel ice lagu dhigayaan arki jiray markaan filmaantaas arka waxaan isdhihi jiray macquul ma ahan baraf oo sidaan bush wa ah oo soo daatay wax macquul ma ahan baan dhihi jiray sidee waxa ku dhaceen barafkaas sida ah sidoo ku dhacay waa la yaabi jiray mise waxa oo suuf cadcadoo la jarjaray waxa mashiin lagu jarjaray waxa sidaan u eg marka barafkaas aan dhex joogo oo da'ay waxay tusaalo u tahay ama way arag u tahay ama wax ka qaadanay dadka sida aniga markaasay to gobolkan ku noolaa mudankan ku noolay ku nool oo baraf halka ka da'ay la dhigta ka heesta laakiin dabcan asagoo da'ayaan arkin ayay u tahay maxaan dhihi jiray wacyigelin waayo ayagoo arkay bay la mid tahay marka qof Soomaalidoodii ah oo barafkii dhex taagan ee arkaan waa yani way ogsoonaanayaan barafka la sheegay siduu u egahay siduu u da'ay dabcan dadka naga qurbaha joogo dadka hore barafku u arkay caadi waaye way garanayaan laakiin micno waxay u sameynaysaa dadka oo back home wadamadeennagii Afrika joogo for example Kenya kale markaan joogno baraf waxa ka di'i jiray dhagaxaan ah waa barafka heelka la dhahay ayaa sometimes ka di'i jiray marka barafkaas heelka oo jingada dhagax ka siina waa arki jirnay laakiin barafkan buunshaha ah oo cad oo bibiibaaye yani wadanka kama di'i jirin maana arki jirin wax igu cusub bay ahaan jirtay markaan xagga joogay marka waxa oo artificial aan u haystay marka dadkaas oo kala ayay maxay ahaydey ay anfacaysaa inaan barafku u soo duubo wacyigelintu ka mid yahay markaan leeyahay qabow badan wax ma cadaaba ilaahu nagu dileen markaan leeyahay yani qabowga way dareemayaan dadka yani san qabowga u dareemayay dadkan wali arkin oo like Soomaaliya oo kala joogo Kenya joogana waaxigeeda meelaha kulkullo barafkuuna ka diin joogo ama Nairobi dhexdeeda qabow iska sometimes barafka heelka uu ka daa joogo dadka Uganda kala joogo Afrika bayaanan kala reebin inta una barafka ka diin dadka jooga waxay u tahay wacyigelin marka barafkaas aan soo duubay xitaa aan idin soo gudbinayo waa ha arkeena dadka walaalaha ee ka dambeeya
بيجا تهاي يعني وإذن تصايا يعني وحا aniga markaan waddanka imaanay igu cusbay oo adinkan idinku cusub oo aan dhex taaganahay oo wajigaygu la gudutay oo qabowga oo dabeesha windiga socota ah oo muxuu ahayd qabowgaas oo waxyaalo aan dadka tusaayo dadka qaar baa laga yaabaa markaan soo geliyo dhahayaan maxay u soo gelinaysaana baraf yaa rabo baraf awal buuba nakadeedee barafka dadka uun markaa aanu u di'inna ama u bilowday bay leeyihiin oo halkaasba hadduu ku bilowday alla kii baa la galay annagana waa noo soo socdaa waay digtoonaa dadka ana baraf weligii arkinna waxay u tahay calaashaan waxay arkeen oo kale indhahooday kaga boganayaan marka barafka aan soo gelinaaye taasaan u soo geliyaa asxaabey marka asxaabey qaybta barafka wacyigelinta ah dhankaasaan uga gudbay haddii wacyigelinta kale aan usoo gudbo waxaan usoo gudbay wacyigelinta kale haddaan asxaabey usoo gudbo horta walaalayaalow run ahaantii waa la dhimanayaa qof kasta maalinkiisii ma dhaafaayo qof maalintiisa dhaafaayo ma lahan markaan hadlayna aad baan u xoog badannahay markaan hadlayna aad baan yacni xanaaq markuuna qabta aad baan dad qof u xanaaq badan oo cadgooso aan isu leenahay laakiin wallaahi run ahaanta marka laga hadlo in la kala cadgoosto ma fiicno haddaan dad Soomaaliyeed nahay dad muslim aan nahay horta dhibaatada iskuma daawano dad aad iyo aad dhibaatada iskugu gurmado oo isgarab istaago oo gacal isku noqdo oo isu gaashaaman baan nahay markay dhibaatana qabsata laakiin markay qabiil iyo qurun iyo waxaan loo joogin la gala meel xun bay naga gaartaa somehow dad dhintay iyo waa in la jaa'ifeeyo oo loo xadgudbo oo muxuu ahayto aad loo dhaadhacana way keentaa marka walaalayaalow yaanan la isku fogaanin dadka baraha bulshada ku jira yaanan isku fogaanin ummadda kalena yaanan isku fogaanin yaan la isku fogaanin muxuu ahayto dumarka ugu badan intuu isku fogaanayo gabdhaha walaalahay baa u badan intuu isku fogaanayo dabcan anigaba ha iga reebin igu dar inaan isku fogaana ma fiicno ninka maanta nool biri ma noolo ma fahanteen yacni adduunkaasaa uma soo wada taagnaanayna dadka biyo guri ma wada noqonayaan oo lama wada dhammaanayo ma fahanteen marka ilmo adeerayaalow yaan la isku fogaanin aqraha la xasuusto allah subxaanahu watacaala ha la xasuusto ha la kala xishoodo ha la is wanaajiyo qofkii qof kale waxa ka tabanayo asagoonan adeegsanin maxaa la dhihi jiray seef af badan asagoona adeegsanin oo dhanka ilaahayna eegaayo oo muxuu ahayto yacni eegaayo labada malaa'ig ee garbaha naga saaran eegaayo waxaa fiican inuu yacni wixii wanaag ah uu ku dhaqmo qofka xanaaqo haddii aad taagneedna waxaa lagu yidhi fariiso 2 rakacadood oo sunno tuko ilaahay u noqo haddaad xanaaqsaneed oo aad taagneed haddii aad fadhidina waxaa lagu yidhi istaag neef samee den soo weysaysa 2 rakacadood oo sunno ah iska tuko ilaahay bare ilaahay baa ku qaboojinaya ilaahay baa wuxuu ku siinayaa naxariis ilaahay baa wuxuu ku siinayaa inuu camalkaaga kuu wanaajiyo waayo waxaan adduun waayo waana ka tegaynaa wax laba yacni karfantanada iyo camalka naga raacaya nothing else naga raacaya ubad aan dhalina baanana raacaynin ninku qabaanana ku raacaynin aabahaaga macaanaay baana ku raacaynin hooyada macaan baana ku raacaynin walaa ehelkaagaana ku raacaynin it's only you iyo camalkaaga waxaa israacaya marka camalka inaan wanaagsanna annaga nagala rabaa 2 kitaaba garbaha naga noo saaran 2 malaa'ig kala qoraysaa subxaanallah aanan buuxsamayn ilaa iyo aad gaadhid dadhay adiga kuugu dambaysa adduunka ceeshkaaga iyo buuggaaga hal mar bay isla soo xirmaayaan annagii sidaas ee tahay oo sidaa u og
haddana waan xanaaqnaa markaan xanaaqnana adduunyo dhan baan qaribnaa markaan qaribnana dib baan ka dhahnaa ilaahay oo naga dhaaf ama waa ma ku sii soconaa waa dad isla quman baan nahay dad isla sii quman oo isla qof isla sii saxsan oo wax walba sii qarboodaay oo wax walba sii qasaay baan nahay markaan xanaaqsanahay ama muddo bilooyin ay nagu qaadataa ama sanadii ay nagu qaadataa you never know halkee lagu soo joogaa intee lagu soo joogaa halkee lagu soo joogaa ma cawada tagaysaa ma berri baa tagaysaa ma ogaan kartid walaalayaal halliis cafiyo muxuu ahayto xumaanta waa sawirada la kala qaadaayo waxaan qurunka ah waxa qajaab palowga ah waxa meelaha wareegaya walaalayaal halliiska daaya ilaahay goyna subxaanahu wa ta'aala ha loo noqdo qof waliba ilaahay goyna subxaanahu wa ta'aala ha u noqdo waayo buuganaga yaanan iska wasaqeynin labada buug aan haysan yaanan iska wasaqeynin camal wanaagsan baan ku raadsan karnaa laakiin wax xun inaan labadanada buug aan ku wasaqeyno aan ku buuxino waa laga fiican yahay walaalayaal dambigeena Allah ha dhaafo run ahaantii dambi waalidkanagana Allah ha dhaafo wallaahi dambiganaga iyo dambi waalidkeen ba Allah ha dhaafo inta ubad haysatana ubadkooda baari Allah uga dhiga intaana ubad dhalina ilaahay ubad saalaxa siiyo ilma adeeryaalo ilaahay goyna subxaanahu wa ta'aala camalkanaga ha toosi hana wanaaji maanta waanadeydii iyo wacyigelinteydii intaas ayay ku eg tahay aad baan idin jeclahay walaalahayga sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta adduunka dacaladiisa aad ka joogtiin hadalka aan hadlaayay for example haddii qof dhibsaday cafi iyo masaamax anna asagana ha ay cafi because guys we don't know ilaahay goyna subxaanahu wa ta'aala naftaana siiyo ilaahay cimri dheer iyo cibaado suuban iyo camal wanaagsan intaba hana siiyo asxaabay intaasaa idinkiiga tagaa intaan hawada ku kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu